الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حاربنا إن إسلا فهنو مهمة إيه leedahay customer care-ka iyo micnaha guud aan u baranayno customer care maxay tahay sida ka muuqata maadada magaceeda waxay ka kooban tahay a combination of two words oo ah customer iyo caring oo ah macmiilkii iyo wanaajintiisa waxaan rabaa inaan ka hadalno saddex qodob oo kala ah what's a customer maxaa la dhahaa macmiil qodobka xiga oo aan rabo inaan ka hadlo waxaa la dhahaa the importance of the customer in the business waa maxay muhiimadda uu macmiilka u leeyahay ganacsiga waxaa qaybta u dambeysa waxaan ka hadli doonaa waxaa waaye why do we need a customer and why do we care the customers waxaa ugu baahannahay customer waana maxay tahay sababta aan u care garaynayno customerkeena waxaa waaye customer maxaa la dhahaa haddaan qeexno customer waxaa la dhahaa customer is anyone who purchases the goods and service produced by your organization or your company macmiil waxaa la dhahaa qof walba uu iibsanayo mise isticmaalayo productiga iyo serviceka uu kambanigaaga bixinayo qofkaasaa waxaa la dhahaa customer la dhahaa markii aan ka hadlayno customerka waxay u kala bixi karaan waxaa la dhahaa potential customers or a normal customer the potential customer waxaa waaye a prospective customerka aan rajeynayno inaan helno oo ay kambanigeena u noqdaan macmiil oo aan mustaqbalka rajeynayno inay macmiisheena noqdaan kuwaasaa waxaa la prospective customer or a potential customer because of they are not really or they are not actual customers right now hadda ma ahan customer sax ah oo wax ka iibsada ma ahan laakiin dad aad rajeynaysid inay kuu noqon doonaan mustaqbalka customerka kaleeto waxaa la normal customer the normal customer waxaa waaye the customers who actually purchase the goods and service produced by your organization kuwa hadda kuu jooga oo sida realiga ah u iibsada mar walba productiga aad soo saartay kuwaasna maxaa la the normal customer kuwa iibsanaya productiga aad soo saartay kuwaas waxay noqonayaan waxaa la a normal customer then waxa isweydiinayna waxaa waaye the importance of the customers in the business muhiimadda ee u leedahay customerka businesska maxaa waaye intaana ka hadlin muhiimadda inaan isweydiino waaye why do business exist muxuu business u jiraa waxaan leenahay business exist for the sake of generating a profit okay businessyada qaar waxay u jiraan waxaa waaye inay sameeyaan profit inay sameeyaan waaye okay markaan ka hadlayno organization ka hadlayno waxaa la organization or a business organization waxaa waaye is a group of people who comes together to achieve a specific goals and objectives hadafkaas ay u dhisan yihiin kooxdaas waana ay rabaan inay gaaraan objectiveskaas waxay noqon karaan kuwa la dhahayo financial objectives ay noqon karaan mise strategic objectives ay noqon karaan then haddii objectiveskaaga ay tahay financial objectives oo ah inaad lacag fiican samaysid income fiican samaysid haddii tahay objectiveskaaga waxaa ku gaari kartaa waxaa waaye inaad customer heshidaa ku gaari kartaa haddaadan customer haysanin you can't achieve that financial objectives oo ah inaad lacagtaas samaysid haddaan dhahno sanadkan waxaan rabnaa anaga incomekeena inuu noqdo 1 million aan rabnaa rabitaankaas ah mise hadafkaas ah inaad gaartid waxay ku xiran tahay inta customers haysatay ku xiran tahay because of the more customers you have the more profit you will generate the lesser customer you have the lesser profit you will generate isku xiran yihiin simple profitka aad samayn doontid iyo inta customers aad haysatid isku xiran because of markii aan ka hadlayno income statementiga oo lagu cadeynayo kambanigan dakhligiisa wuxuu ka bilaabanaa qaybta koowaad waxaa waaye revenue ka bilaabanaa revenue markii aan ka hadlayno revenue-ga wuxuu ka kooban yahay asigana waxaa waaye quantity-ga iibisay iyo qiimaha aad ku iibisay then quantity-ga aad iibinaysid waxaa go'aaminaya waxaa waaye inta customers aad haysatid it means waxaa waaye haddaa haysatid 5 customer quantity-ga aad iibin doontid waxay noqon doonaan maybe 5 ay noqon doonaan laakiin haddaa haysatid 100 customer quantity-ga aad iibin doontid waxay noqon doontaa 100 shay ay noqon doontaa then quantity-gaas lagu dhuftay qiimaha shayga waxay go'aamin doonaan revenue-gaaga then markii aan ka hadlayno example oo kale income statement-iga qaybtiisa koowaad oo laga bilaabayaba waxaa ku qoran Soomaa revenue ku qoran revenue-gaas wuxuu ka imaanayaa
inta customers oo haysatid lagu dhuftay qiimaha shayga waa inta shay aad iibisay lagu dhuftay price-kii waa inta shay aad iibinaysidna waxaa go'aaminayso inta customers haysatid. It means waxa conclusion-ka the more customers you have, the more profit you will generate. The lesser customers you have, the lesser profit you will generate. Haddaad macmiil yar haddaa haysatid profitkaaga wuu yaraana. Macmiil badan haddaa haysatidna profitkaaga wuu badnaan doonaa waay. Meeshan waxaa ku qoran waxaa waaye graph ku qoran. Graphkan wuxuu kuu muujinaa sida revenue-gaaga uu saameynta ugu leeyahay quantity-ga aa iibisay because of quantity-ga aa iibinaysid oo ah intaan ah. It means hadda waxaa ku qoran inta waxaa waaye price times quantity equals 400 aa ku qoran Soomaa. It means waxaa waaye company-gan wuxuu iibiyey 100 shay oo iibiyey halkii shay qiimihiisu wuxuu ahay $4 oo ahay then revenue-giisu wuxuu noqday waxaa waaye $400 oo noqday. For example, haddaan iibino 400 oo shay haddaan iibino it means inaad 400 oo shay iibisid waxay ku xiran tahay inaad customer badan haysatid ay ku xiran tahay Soomaa. Okay, haddaa 400 oo shay haddaan iibino revenue-geen wuxuu noqon doonaa quantity-gii oo 400 ahay lagu dhuftay qiimihii oo ahay $4 ahay then revenue-geena wuxuu noqon doonaa $1,600 because of waa ujeedaa markii hore revenue-geena wuxuu ahay 400 oo ahay haddana revenue-geena waxaa waaye $1,600. Inuu revenue-gaaga $1,600 gaaro waxaa go'aamiyey quantity badanaa iibisay waa quantity badanna inaa iibisidna waxaa go'aaminaysa waxaa waaye inaad customer badan haysatid waa. Okay, then customer-kaaga waxay go'aamin doonaa the total revenue-gaaga. Total revenue-gaagana wuxuu go'aamin doonaa income-kaaga. Meeshan waxaa ku qoran the quantity you sell depends on the number of customers. Inta wax aan iibinayna annaga waxaa go'aamin doona inta customers haysid. Meeshan waxaa kaaga cad waxaa waaye haddaa rabtid inaad profit fiican samaysid waxaa ku qasban tahay inaad customer badan haysatid. Inaad customer badan haysatid waxay ku xiran tahay inaad customer-ka qancisid ay ku xiran tahay si ay kula sii joogaan. Haddaadan customer-ka qancinin automatically they will left from your organization. Way kaa tegi doonaan simple. Marka si ayna customers-kaas kaaga tegin waxaa ku qasban tahay inaad customers-kaaga qancisid waaye. qaybta xigta wuxuu ka hadli doonaa waxaa waaye why do we need a customer and why do we care the customers. Maxaa u care garaynaynaa annaga waana maxaa ugu baahannahay customer because of waxaa waaye haddaan rabno inuu company-gaaga koro mise uu successful noqdo waxaa ku qasban tahay waxaa waaye inaad customer-kaaga qancisidaa ku qasban tahay. Okay, meeshan waxaa ku qoran 100%, 80%, 60%, 20% or 10%. It means waxaa waaye heerka ay gaarsiisan tahay inaad customer-kaaga qanciso waxay go'aamin doonaan company-gaaga heerka uu successful ka noqon doono. Okay, inta uu company-gaaga successful noqon doono oo guul gaari doono waxaa go'aamin doono inta aad customer-kaaga qancisid. wax badan haddaa qancisid customer-kaaga 100% successful aa noqonaysaa. Haddaa 10% haddaa qancisidna less successful aa noqon doontaa, failure aa noqonaysaa. Okay, why do we care the customers? Caring-ka waxaa waaye making them satisfy. Inaad customer-kaaga qancisid oo aad wanaajisid oo ay kugu noqdaan satisfy then makaa tegi doonaan way kula sii joogi doonaan company-gaagana successful aa noqonaa. Okay, slide-kan xiga waxaa ku qoran waxaa waaye if you do not satisfy them you will collapse. Anaga business aan nahay haddaanan qancinin customer-keena waa baabi'i doonaa simple because of waxaa waaye business-ka inuu sii jiro wuxuu ku xiran yahay inuu macmiil haysto ku xiran yahay. Sababta aan annaga u qancinayn customer-ka ma ahan inaan customer-ka jecel nahay inaan customer-ka qancino waxaa ku xiran company-geena inuu sii jiro ku xiran. sababtaas waa sababta aan u qancinayn customer-ka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.